aroortu bandhigaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta codka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. 92 qof oo Soomaali ah oo laga kala qabtay meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka ah loona masaafuriyay Soomaaliya ayaa dib loogu soo celiyay magaalada Dakar ayaana laga soo celiyay dalka Senegal. Dadkan ayaa haysan sharciga dalka Mareykanka waxaana diyaaradii waday ay dib ugu soo noqotay gudaha dalkan Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa war ka soo baxay hay'adda waaxda socdaalka iyo xuduudaha ku sheegtay in cilado farsamo oo dhacay awgood dadkani dib loogu soo celiyay. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahan ka wareysatay Cumar Jamaal oo ah nin la shaqeeyo sharci yaqaanada gobolka Minnesota. waa mahadsantahay arrintan runtii waxay nagu noqotay arrin lama filaan ah. dadkan muddo ayaan daba taagnayn. qaar ka mid ah shalay ayaa federal judge qaali oo Mareykan ah wuxuu ka reebay hal nin oo diyaaradda laga soo dejiyey. daraad ayay ka baxday Louisiana meel ay dhahaan Lexington staging facility oo immigrationka xabis ayay diyaarad ka saareen. tiradooda annaga waxaan ku weyn 104 qof, laakiin hadda warka ay dowladda Mareykanka noo sheegayso waxay dhaheen 92 qof weeye. waxaan marka hadda haynaa inay diyaaradii la soo celiyey xagga logistic iyo mechanical problem ay dowladda Mareykanka ay sheegaysaa in warar iskhilaafsan